masjidkan wuxuu aasaasnay taariikhdu markay aheeday inta la xasuuso miilaadiyada 1930kii oo haddii aad taariikhda maanta meeshay joogto aad ka goyso ay noqonayso 89 sano dadkii waagaas masjidka asaasay waxa weeye wax ka noolu ma jiraan ama waa naadir intaas ayaa maaragtay masjidku wuxuu u khidmaynayay dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad ku nool waxaanu leenahay masjidkan qiimaha badan oo masaajidii diinta Ilaahay u soo khidmaysay kuwa ugu horeeya kamida in maaragtay maanta masjidkii waa la duminayaa waxaa la rabaa haatan sidaad u jeediin waa maaragtay hal guri waaye oo aan dabaq lahayn oo siyaado aan lahayn hadda waxaa u jeedaan magaalada ama magaalooyinka amba caalamka in la dhisaayo hawada sare maaragtay gurihii la sii marinaayo ayadoo adduunyo looga jeedo maqsadka uu dahay lidunya uu yahay guriga Ilaahay in halkaas la gaarsiiyo oo dadka muslimiinta ay wusci ay ka helaan oo ay ku cibaadaystaan ayaa loo baahan yahay taas ayaa ka khayr badan meesha Ilaahay agtiisa oo wax laga doonayane waxay noqonaysaa wax kastoo lagu doonayo Ilaahay jannadiisa baa la rabaa waxaanu u diraynaa fartiin iyo baaq dadka ina dhageysanaya iyo kuwa ina daawanayaba oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay masjidkan masjidur rahma ee ku yaala xaafadda deegaanka Wardiigley loona yaqaano magaca uu ku caanbaxay masjidka Cabdullaahi iyo Cawareere in akoomadiina aad u furtaan oo jeebabkiina aad u furtaan oo quluubtiina iyo wajiyadiinaba aad u furtaan si masjidku uu dalka iyo diinta iyo ummadaba ugu sii khidmeeyo laana walaalayaal masjidka dhismihiisa iyo taageeridda masjidka innaga ku danaysanayno innaga maslaxa noogu jirta innaga masaalixdeena adduunyo iyo middeena aakhiraba Ilaahay uu ku hagaajinayaa subxaanahu wa ta'aala aan isku dayno inaan wax ku darno masaajidka oo labada shardina la ka helo Ilaahay daraadiis iyo maal xalaala maal xaraam oo Ilaahay ma aqbalo wax ku tarimayso haddii Ilaahay daraasayna wax ku tarimayso nafta ayaa la diriro yaa la dhihin masaajid baan wax ku daranay bini aadan baan nahay markasta waa u baahannahay sida culimadu sheegtay sadaqaduna waa ku barakoobaya maalku caafimaad baa lagu helayaa